عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararka caawa waxa ugu waaweyn madaxda ciidanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa maanta kulmay kana wada hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab taageerayaasha madaxbannaanida Catalonia ayaa shaaca ka qaaday inay wadayaan ololahooda xorriyad doonka ah iyagoo amar diidda samayn doona haddii Spain xukun hoosaadka la wareegto caawana waxaanu idin haynaa warbixin ka hadlaysa Hargeysa iyo ubaxeeda iyadoo halkaasi laga furay goobo dhirta iyo ubaxa lagu bacriminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab kadib qaraxii Muqdisho maanta waxaa kulmay madaxda ciidanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM si ay uga wada hadlaan dagaal lagala hortagay Al-Shabaab wariyaha BBC da Cali Nuur Salaad ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray madaxweynuhu waxa uu ku dhawaaqay dagaal waxa uu nasagootiyay ciidan ku sii jeeda aagaga hore ee dagaalka waxa uu u muuqday mid ka jawaabaya caradii shacab ee ka dhalatay qaraxii Soobe sheegaya aniga ugu horeeya waxaan diyaar u ahay inaan idinku imaado aagaga dagaalka idinka maanta baxaysaan insha Allah waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa guul hogaanada ciidamada Soomaaliya iyo kan AMISOM ayaa ka wada hadlaya jawaabta ay Soomaaliya doonayso in ay bixiso iyo kaalinta ay ciidamada AMISOM ku yeelan karaan hadda waxaan ku jiraa xaalad adag oo ogtiin wax muxuu ahaa arinta xilligan lagu jiro sidaas daraadeed waxaan u baahanahay sidii aad gacan noo siin jirteen iyo si ka fiicanba inaad noo siisaan oo aad ka dhigtaan tilaabooyinkii aad anagu aan ku hanan lahayn dalkayaga inaad nala gaarsiisaan inta idin rabto waqtiga kaga haray in ka badan 20,000 oo askari oo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya balse dawladda Soomaaliya waxa ay doonaysaa in marka la gaaro sanadka 2018 ciidamadani bilaabaan in ay dalka isaga baxaan balse su'aashu waxa ay ka taagan tahay ciidamada Soomaaliya ma u diyaarsan yihiin in ay ammaanka la wareegaan حستيدو طبعا كل بحالتي اسبتشاء وحيرتها إني قرشة لا صعد الله كيرتون شلي وحل قرشية أيضا كأميسوم إنه بلابتونا كبحيتان كصوماليا لابد يكون استيد تبكى حتى ويقطع الله السياسيين تي ويأركيان وحن رجينا يا إني حالة الجرتاي وحكبتلي تونا kolka iyo waxay u taala dadkii go'aanada qaadanayay bay u taala annaguna waanu qoraynaa waxaan leenahay xaaladu uma bislo imika ina dib loo korto madaxweynaha ayaa booqasho ku maraya qaar ka mid ah dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya isaga oo taageero u raadinaya dagaalka uu Al-Shabaab kula jiro maamulka Catalonia ayaa ku gacan saydhay inay ka noqdaan qorshahooda madaxbannaanida waxaana ay cadeeyeen inaanay ka amar qaadanaynin Madrid go'aankan ayaa mar kale isku dhufan kara maamulka gobolkaasi iyo dawladda dhexe ee Spain dawladda Spain ayaa damacsan in ay si dhaqso ah ula wareegto xukun hoosaadka gobolkaasi toddobaadkan Qaalib Xasan Baaruud ayaa ka waramaya shaqada sugaysa xildhibaanada Catalonia waa mid ka duwan kuwii hore shaqadoodu waa inay go'aamiyaan jawaabtii tallaabadii ay Madrid sida tooska ah ugula wareegtay xukunka gobolkooda sidee dimuqraadiyadda midowga Yurub ku jiraysaa siyaasa lagu aamini karaa haddii ay ogolaadaan inay tani dhacdo waxa aan ku sheegi karo waa in dadka iyo dastuurka Catalonia aysan ogolaanayn inay tani dhacdo tallaabada xigtaana waxay noqon kartaa inay si toos ah ugu dhawaaqaan madaxbannaani xukuumadda Madrid ayaa maanta sheegtay inay awoodda ka qaadi doonto hogaamiyaha Catalonia Carlos Puigdemont isla markaana ay jari doonto mushaharkiisa marka ay golaha sare ee baarlamaanku ansixiyaan qodobkan go'aankan ayaa laga yaabaa inuu hirgalo Jimcaha aad ayaan uga murugaysnahay in dawladda Spain ay ku dhaqaaqdo hirgelinta qodobka 115 ee dastuurka waxaan aaminsanahay in siyaasiyiinta Catalan ay madaxbannaani ku dhawaaqaan Jimcaha murankan siyaasadeed waxaa sidoo kale garab socda dibadbaxyo waxaa xalay Madrid ka dhacay bannaanbax lagu taageerayo Catalonia hirgelinta xukunka tooska ah ee Madrid ayaa noqon doona mid meel sare gaarsiiya ismaandhaafka labada dhinac
weli ma cadda sida ay shuruudahanu u fulayaan waxaana si gaara loo eegayaa hoggaanka taliska gobolka. waxaan rajaynaynaa in ciidanka gobolka Catalonia ay xukumaan dad ixtiraamaya dadka iyo sharciga iyo weliba sharciga dalka Spain. waxaan anagu rabnaa kulligayo in nolosha Catalonia ay noqoto nolol caadiya oo nabad ku nagaasha. rajo weyn lagama qabo isu imaanshaha labada dhinac waxaana muuqata in loolanka labada dhinac uu sii kordhayo maalinba maalinta ka dambaysa. faahfaahin dheeraad ku saabsan warbixinaha iyaga waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. maxkamad ku taala dalka South Africa ayaa la filayay inay xukun ku rido 2 nin oo beeraley cadaan ah kadib markii ay nin madow ku kalifeen aan idhaahdee inuu naxash galo iyagoo ugu hanjabay inay dili doonaan bishii August ee 2016. muuqaal moobilka lagaga duubay ninkaasi oo ay dadweynaha dalkaasi daawadeen ayaa dadka aad uga cadhaysiiyey. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ka digay degenaanta dalkaasi inay khalkhal gali doonto haddii ay sii socoto wiir dagaalka ka dhaxeeya kooxaha kala duwan ee siyaasadda. waa kooxaha qunyar socodka ah iyo kuwa garabka midig u janjeera. kooxaha mayalka adag ayaa dhawaanahanba waday cambaareen heshiiska nuclearka ee ay Iiraan la gashay beesha caalamka. deeqbixiyayaasha ayaa ku yaboohay $340 milyan oo lagu gargaarayay qaxoontiga Rohingyada ee u qaxay dalka Bangladesh. qaadhaankaasi ayaa lagaga yaboohay kulan gaar ah oo qaramada midoobay u qabatay xaaladda Rohingyada muslimka ah. Bangladesh ayaa sheegaysa in imika 1 milyan ka soo carareen Barma laga bilaabo bishii August. ra'iisul wasaaraha Japaanka Shinzo Abe ayaa sheegay inuu la shaqayn doono Mareykanka, Ruushka iyo weliba Shiinaha si xal loogu helo xiisadda nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi. xisbiga uu hogaaminayo ee LDP ayaa si weyn ugu guuleystay doorashadii Japan ka dhacday. ra'iisul wasaaraha ayaa imka waxa uu haystaa taageero ballaaran oo baarlamaanka ah. dhaqaalaha dalka Kenya ayaa dhibaato ay ka soo gaadhay degenaansho la'aanta siyaasadeed ee hadhaysay doorashooyinka madaxtinimo ee soo socda. sarkaal sare oo ka tirsanaa guddida doorashada ayaa iscasishay iyadoo sheegtay in aan doorasho cadaaladii halkaasi ka dhacaynin. mucaaradka oo iyaguna ka baxay tartanka ayaa khalkhal geliyay waxyaabo badan. banaanbaxyo ayaa dalkaasina ka dhacay. ganacsiga ayaa dhibaato ka soo gaadhay haddaba arrimahaasi siyaasadeed ee kacsan. farxaan maxamed jimcaale ayaa ka warramaya. ganacsigeedu sidiisii ma ahan Pamela. waxay samaysaa albaabo iyo dariishado oo ay sheegayso in isla markiiba laga iibsan jiray laakiin hadda xaalku sidaa ma ahan. ganacsigaygu wuu sii baaba'ayaa. albaab xitaa ma iibin kara maalintii. dariishad iska daaye. awal 13 ayaan gedi jiray maalinkii. Raila iyo Uhuru waa inay wada hadlaan. wax walba way hagaagayaan. waa walaac ay qabaan ganacsato badan. macaamiil badanna waxay door bidayaan in ay haystaan lacagtooda oo ka warsugaan waxa dhici doona. ma ahan oo keliya qaybahan cidda dhibaatadu ay hayso. xitaa shirkadaha waaweyn ayaa dareemaya dhibaatada doorashada iyagoo isku dayaya in ay sii wadaan ganacsigooda. shirkaddan waxaa fadhigeedu yahay magaalo ka baxsan caasimadda Nairobi. Bidco Africa waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn bariga Afrika oo maalintii samaysa in ka badan 6,000 oo tan oo saabuun iyo saliid ah. subax walba shaqaaluhu waxay ku heesaan in si wada jir ay u shaqayn doonaan iyadoo aan loo eegin halka ay ka soo jeedaan. laakiin xaaladda siyaasadda oo aan deganayn alaabtii halkan baqaarka ayay dhooban tahay inkastoo ay tahay waxaad loogu baahan yahay. laakiin madaxa shirkadda rajo ayuu qabaa in uu warshad kale uu furo November balse wuxuu leeyahay waa in xaaladdu ay isbeddeshaa. waxa Kenya ka socdaa waa nasiib darro waayo dalku waxa uu leeyahay awood uu ku gaadho mustaqbal wanaagsan. murankan siyaasadeedna ma aha mid dalka u wanaagsan. muhiimaddu waa in fiiro gaara loo yeesho aayaha dalka. waa walaac haysta ganacsatada Kenya laakiin ilaa xiisaddan la xalliyo
dadkan ganacsatada ah waxay ka fakirayaan sidii ay suuq u heli lahaayeen. caawiyo ciyaarahana kooxdii Everton ayaa waxay eriyeen tababarahoodii Ronald Koeman kadib markii 5-2 Arsenal ku garaacday iyadoo garoonkooda lagu ciyaarayo. kooxda ay isku magaalada yihiin ee Liverpool ayaa iyana xaaladeedu ay adag tahayba, waxaanay Tottenham ku jeedhay 4-1. tababaraha Liverpool ayaa isna cadaadis saaran yahay, isagoo laakiinse isagu aad ugu cadhaysan ciyaartooygiisa, waxaanu yidhi wakhtiyadii aadka loogu baahnaa oo dhan ma joogno meeshaanu doonaynay. way adagtay in laga hadlo sababta oo ah ma rabo in jaraa'idka xagga horena lagaga qoro, laakiin waxay ahayduun difaaca iyaga oo aan wanaagsanayn dhammaan garoonka oo dhan qaybihii loo baahnaa. darawalka Lewis Hamilton ee Formula 1-ka ayaa u dabaaldegay guushiisa tartanka gawaadhida ee Grand Prix ee dalka Mareykanka. waxaa la joogay orodyahanka caalamiga ah Usain Bolt iyagoo ku qabtay Austin, Texas. guushani ayaa Hamilton qarta u saaraysa inuu markii afraad ku guulaysto Formula 1-ka. dhirtu waxa ay deegaanka iyo bani'aadamkaba u tahay lagama maarmaan noloshooda ay ku tiirsan tahay. haddaba waxaa dhowaan dadka reer Hargeysa qaarkood bilaabeen xanaano dhirta lagu bacrimiyo oo loogu gol leeyahay in bulshada lagu baro beerashada dhirta. cimil ahaan dhulka Somaliland waxa uu eegyahay lama degaan oo dhirtu kuma badnaa, laakiinse dhirtu waxay qurxisaa guryaha iyo deegaankaba. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad. halkani waa mid ka mida goobaha ay xarunta dhirbeerista ee sugan bilicsan ay ku diyaariso geedaha ay iibiyaan. waa ubaxyadii waxa baxa waxa noocyo kala duwan oo siidhka dhirta dalka laga helo iyo kuwa dibadda laga keenayba ay halkan ku beeraan ku koriyaan ilaa iyo inta uu ka iibgalayo. dhirta hadda halkan aanu ka helay laga helayo waxa kamid dhirkeena hore localka ahayd tan waxyada idii wada muuqata iyo dhir kale oo laga keeno dhirtan mahoganyga la yiraahdo aadka u weynaada oo aan marka hore dalka oolin. intii aanu ku sugnayna xarunta sugan ee dhirbeerista ee magaalada Hargeysa waxaa imanayay macaamiil tiro badan oo kala duwan oo iibsanaya dhirta noocyadeeda kala duwan oo isugu jira kuwa la harsado iyo ubaxyada guryaha lagu qurxiyaba. mid ka mid ah macaamiilka ayaan kala sheekaystay baladeegyada subaxan saaka ah oo halkan uu ka qaadanayay. halkan maaha markii ugu horeysay imid, laba jeer oo horena imid, labadii jeerna waxa ka qaatay laba geed oo hadha. gurigeygii ayaan ku horbeeray labadii geed, imankana waa la harsadaa. maamulka xaruntu waxay ii sheegeen in imanka dadku ay si fiican u barteen faa'iidada dhirbeerista, macmiilkooduna uu sii kordho marba marka ka dambaysa. bilowgii dadku qaar waa nala yaabanaayeen oo yacni dee dhir la iibinayo inta badan halkan kamay jiri jirin. marka waxay mar kasta lahaayeen maxaa idinka faa'iidaa dhiraad beeraysaan, maad business kale abuurataan. laakiin maanta Somaliland marka laga baxo ilaa garow laga soo doontaa, meelaha ugu shisheeya waliba laga soo doontaa aan ku xidhannahay. mid ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda oo aanu goobtan kula kulannay ayaa dadweynaha kula dardaarmay inay ka qayb qaataan dhirbeerista. aniga gurigeyga iminka dhir aad u badan baa ku taalla oo geed midhood leh oo flower leh oo kuwii harka leh waxba halkan ka iibsaday. dhirtu waa muhiim, waa quruxda dhulka. dadweynahana waxaan ka codsanayaa inay iibsadaan dhirtan oo ay beeraan. Hargeysa waa magaalo ay dhirtu ay ku yar tahay, dadkuna may siin jirin ahmiyad weyn dhirbeerista, laakiin goobaha caynkan oo kale ah waxa ay ka qayb qaadan karaan dib u soo noolaynta bilicda deegaanka. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa. ugu dambeyntiina caawa dalka Brazil ayaa rikoor cusub la isku dayay. qaylada aad maqlaysaa waa 245 qof oo xadhig sooraan biriish kaga shalwaday iyagoo rabay inay jabiyaan rikoorkii hore ee xadhigka boodka biriishada oo ahaa 249 qof oo kaliya. waxbaa ka dhacay, waa dad naftooda horeyaal u ah rikoorkooda shalwashada biriishada. wararkeennan iyo kuwii ugu dambeeyey waxaad kala socon kartaan oo aad ka helaysaan bbcsomali.com. intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii. waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan.